السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن halkan ka salaamaya dhamaan haweynta beesha gabooye. mar labaadka waxaan doonayaa halkan inaan cabaarin xoog leh uga diro madaxda reer Somaliland oo aan oran karo run ahaantii dulmigii faraha badnaa iyo xasuuqii muddo badan aan ugu soo hayay tawaan ka soo gudubnay oo haad imika waxaan noqonay ummad gacmaha siisata una diyaara isbedel xoog leh oo ku dhaca mustaqbalkooda. haddaba waan ogsoonahay in had iyo jeer xukuumadda Somaliland ay isku daydo inay laaluushto ama ay qasab run ahaantii ama si awood ah ay taageero uga hesho beesha. taasi markii ay u suurtagali weyday ayaa waxay sameeyeen markaas in ay weerar ku soo qaadaan la taliyii hore ee jamhuuriyadda Somaliland mudane barkad jaamac xirsi, kuwaas oo markaa isku dayay inay adigu macnihii una bareeray inay dilaan. taasna ay sabab u tahay maadaama uu diiday ama ay ku fashilmeen qorshihii ay ku damacsanaayeen in ay run ahaantii ay laaluushaan ama ay run ahaantii ay kaga helaan cod buuxda. haddaba maanta ma nihin ummad sidii ciyaalka loo sasabayo, waxaan nahay ummad u diyaar ah in ay ka muuqdaan saaxadda siyaasadeed ee Somaliland iyagoo markaasi ka helaya jagooyin u qalma jagooyinka ay ka helaan qabiilada kale ee Somaliland. haddaba waxaan leeyahay xukuumadda Somaliland wax kastoo samaysan haba yaraatee waxaas wax idin suurtagelaya mana aha haddii aad weerartaan madaxdeeda ee run ahaantii inaan anagu nahay dadkii markaa ka niyad jabi lahaa qorshahaas.